siyaasiyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo suxufiyiin ka tirsan telefishinada Saab TV iyo Hoon Cable TV ayaa gelinkii dambe ee maanta si rasmi ah u helay xorriyadoodii kuwaas oo u xidhnaa xukuumadda muddo 26 maalmood ah oo ka bilaabmaysa 9 Juun 2022 taasi oo ahayd maalintii uu mudaharaadku ka dhacay magaalada Hargeysa. xubnahan isugu jira siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta ayaa la soo daayay kadib markii ay ergada dhexdhexaadinta ah ee ka socday madax dhaqameedku maanta la kulmeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi isla markaana ay ka codsadeen in la soo daayo siyaasiyiinta xidhan. xubno ka mid ah ergada dhexdhexaadinta ah oo jeelka Madheera kaga hortagay siyaasiyiintani xidhan ayaa halkaas saxaafadda kula hadlay iyagoo ka xog warramay siideynta siyaasiyiintan muddada bisha ku dhow ku xidhnaa halkaasi. intii arrintii dhacday 9kii bisha ilaa maanta waxa weeye raggu waa socday hadday xukuumad tahay iyo hadday shacbi tahayba waa la wada hadlayay ilaahay maanta ayuu soo gaarsiiyey in halkan iskugu nimaadno waxa weeye taa haddaan ka tago waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa runtii haddii aan nahay duqeydan afka duqeyda ku hadlaya hawshaa isku xilqaantay ee dhex socotay muddada bisha ah in la naga ogolaaday in haddii alla yidhaahdo aan maanta bilowgii saldhiggii maanta laga bilaabo oo qaybta koowaad ahayd siideyntii raggii duqeyda ahaa ee halkan maanta ku xidhnaa ta labaadna ay tahay wada hadalkii iyo fadhigii in la iskugu yimaado waxa weeye raggii duqeyda ahaa ee halkaa ku soconnay madaxweynaha iyo golayaashii kale guurtida iyo gudoomiyaha guurtida iyo gudoomiyaha maxkamadda iyo gudoomiyaha wakiiladaba raggii ka qayb qaatay cali warar caddo isna qayb lixaad ka qaatay raggii kale ka qayb qaatayba waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. maanta waxaanu joognaa Mandheera sidii raggii horeba sheegay ama salaadiintii ama raggii odayaasha ahaa ee waxa weeye halkan ku xidhnaa ama madaxdii kale ka hadashay hawshii aan muddada ku soo jirnay ee muddada bil iyo xoogaaga ah ilaahay waxa weeye waa nagu gargaaray qaybteedii koowaadna waad aragtaano waxa weeye ragga odayaasha ee 16 ka xidhan weeye ilaahay waxa weeye waa nagu gargaaray xukuumadduna saaka ugu dambeysay markaan madaxweynaha isu nimi si wanaagsan oo qiimo badan oo sharaf badan ayaanu madaxweynaha waxa weeye arrinkaas aanu sula qaadanay birina haddii alla idmo wareegii labaad wada hadalka furmaya wixii dambe ka soo baxana insha Allah waa loo wada joogaa wax walba waa khayr waa nabadgelyo dhibaato ma jirto. wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Cabdirasaaq Albani iyo Cali Maxamed Waran Cadde ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin soo deynta siyaasiyiinta xidhnaa. maanta waxa inoo koowa sidii dhaqanka reer Somaliland ahaan jiray haddii ay wax dhacaan carabiga labadiis daanba isugu dhow isqaneynaan in gacanta la mariyo arrintii baa maantana inoo dhamaatay halkan dabadaynu wada joognaa waqtigii iyo dhibaatadii intii maalmihii jirtana waynu ka soo baxnay halkan waxaan jeclahay inaan muxuu ahaay ka sheego anigoo u mahadnaqaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo runtii dadaal weyn sidii wixii dhacay dib loogu muxuu ahaay heshiin lahaa la isu saamixi lahaa wixii dambe ee jire ee muxuu ahaay khilaafii jirena berita laga bilaabo la isu iman lahaa oo la isu calool xaadan la isu laab xaadan lahaa ayaa maanta halkan u joognaa. ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala sidaa wanaagsan ee xukuumad iyo shacabkeedii kala duwanaa ay arrinta uga shaqeeyeen iyo dadweynihii kale ee ummadda maaragtay reer Somaliland oo ay ugu horeeyaan golaha guurtida oo runtii dowr weyn ku leh arrimaha noocan oo kale ah iyaguna si wanaagsan uga shaqeeyey way ku mahadsan yihiin gogoshii xukuumaddu ay fidisayna sidii bay u taallaa waana insha allahu tacaala la isugu imanayaa waana lagu ballamay in berri la isugu yimaado oo gogoshii markii hore madaxweynuhu fidiyey halkiiba iska taallaa iyadun baana maalinkaa maanta ah lagu soo wada fadhiisan doonaa dee Soomaalida waxay tiraahdaa wada hadlaaba heshii dadku way ka heshiinayaan mar hadday isu yimaadaan oo wada hadlaan oo wixii sharcigu yahay farta isu saaraan haddii xagga xukuumadda qalad soo jiro fartaa loo saarayaa waanay qaadanaysaa haddii xagga mucaaradka qalad jirana iyana fartaa loo saaraya waana inay qaataan.
gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse Suxufi Xamse Gelle iyo xubno kale oo siyaasiyiinta xiran ka mid ahaa ayaa iyaguna u mahad celiyay ergada dhexdhexaadinta ahayd inta hudheel laga qafaasho ama la iska xidho marka dambana yidhaahdo si wanaagsan baa nololo dhaqmay iyagoo u jeeda nalama dilin marka sidii oo kale waxaan leenahay nalama dilin waan nool lahay ilaahayna way naga sabata saari doonaa sidan hadalkayagana sida salaadiintu codsatay annagoo dalka u tudhayna salaadiinta Mandheero noogu timi ixtiraamayna cali waran cadde ixtiraamayna iyo rag kale ka qayb galay hawshaba waxaan mar labaad u mahadnaqaynaa ilaahay mar saddexaadna ummadda waxaan u sheegaynaa ciidanka booliska Somaliland inuu dalku u baahan yahay in dib loo eego waxaan kaloo aan sheegaynaa high station place-ka Hargeysa waxaan nagula xidhnaa nin saldhigga dhexe hormaray oo askari centeria salaamay oo yidhi assalaamu calaykum oo dabeetana lagu xidhay 3 bilood buu ilaa imika xidhan yahay kaana erge ka gala min fadlakum oo soo daaye marka laakiin qolada ay jeeshu waa niman yaqaana sharciga iyo nidaamka iyo dawladnimadaba garanaya annaga way noogu roonayaan cuntada iyo caafimaadka iyo nadaafadda intaba way noogu roonayaan jeelkani ragga haystaana waa rag madax oo aqoon sare leh laakiin waxay ku shaqeeyaan siyaasadda madaxdooda marnaba noomay ogolaanin wixii kalenu xuquuq u lahayn waxaan leeyahay tallaabadii ugu horreysay waa intii ugu yareyd ee ay qabteen ee u suura gasha dhib fara badan oo ka soo gaadho annaga soo deynteeda galabta halkan u taaganahay waxaan idinka wada codsanay inaynu ugu ducayno hawshii ka badnayd oo u taalla oo runtii qaranka dhan masayrkiisii baa sugaya ilaahayna idinku asturo annaga iyo dhibtiina gaadhina waa waxa ugu fudud waxaase aanu ka wada war sugi doonaa oo aanbaanu dhibtaa ku iloobi doonaa xaajadaa salaadiintu gundhigeeda ilaahayna ha fududeeyo dad ku niyad jabaya ma yihiin in Mandheerana la keeno ama in meel kale la geeyo haddii Guantanamo Bay la geynayo annagu mihnadaydu saasaan ugu shaqaynaynaa dhex baan ku shaqaynaynaa caadifadana qaadi mayso oo dhan mayno xukuumaddu wayda xidhay oo tacaddi waa la idinku kacay oo idinkoo qaarkiin xanuunsanayaan ayaa la idin diiday inaad dhakhaatiirtiin aad gaarka u lahaydeen la idin siiyo sidaan u shaqaynaynay aan qarankayga ugu shaqaynay ee dhexdhexaadnimada lahayd ayaanu hadhiyo habeenba ku shaqayn doonaa warbaahinta kalena waxaan baaq u dirayaa inaanay baqan oo xabsigu yahay xabsigoodii sida ay u shaqaynayeen ee dhexdhexaadnimada lahayd ay u shaqeeyaan magaalada Hargeysa runtii waxaan la qiyaasi karin oo bulshadu malaysan karin ayaa halkaasi ka jirta bulshada tacaddi badan baa lagu geystaa dadka ku xidhan waxay u kala badan yihiin qaybo kala duwan waxa ku xidhan nin saldhig baad salaantay loo soo xidho saldhigintu hormaray lagu xidhay dadka ku xidhan waa dad inaba aad qaadan kareen waxa dhacday in dadka halka ku xidhan sigaarkii qaadka ay askartu ugu geyso haddana iyaga laftooda lagu garaaco oo inta qol isku geeyay inta la qaawiyo la wada garaaco xuquuqul insaanka ee kuwa madaxa banaan iyo kuwa aan madaxa banaaneenba in xaaladda saldhigaasi oo waxayna qiyaasi kareen oo aan halkan ku soo koobi kareen ay ka jiraan oo marka aan soo dhaweeyo lagu qiyaasi karo jeelkii Cabdiilay ee ogaadeen iyo ku yaalay lagu qiyaasi karo in isaga xaaladiisa gaar loo eego sano wixii aanu ku naaloonayeen soo dhabdhabaynay way burburtay maadaama qoys isugu timin gabigeedaba waxa inan iyo aabihii iyo inan iyo adeerkii ayaa dadka ku tacadiyay wallaahi ilaahay baa yaab ku keenay haddaad aragtid saldhiga dhexe jeel ogaadeen buu noqday aniga 4 saacadood baan daldalaa inta lugaha sabad la iga soo daldalay aan lugahaygu sareen xagga hoose u daldalaayeen ma aha markii ugu horeysay ee xukuumadda Somaliland ay xidho siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka iyo suxufiyiin ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan balse dhowr jeer ayaa sidan oo kale loo xidhay hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland